kulankii degdeg ahaa oo shalay ay iskugu tageen golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee Soomaaliya oo looga shiraayay sidii loo dhaqangelin lahaa dastuurka cusub oo dhigaya in muddaxileedka dowladda ay tahay muddo 5 sano ah. Qodobada waxay kaloo qayb ay ka ahaayeen in la kala saaro xilalka dowladda, xukuumadda iyo si la mid ah ee baarlamaanka in la kala saaro. Haddaba ilaa hadda wax war ah kama aysan soo saarin xukuumadda federaalk ee Soomaaliya dhaqangalkaasi, iyagoo shirka uu shir gudoomiyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. ajandaha ugu muhiimsan ay ahayd in la dhaqangalsho ee dastuurka cusub, laakiin wax war oo rasmi ah oo ka soo baxay ilaa imika oo ka yimaaday dhanka xafiiska ra'iisul wasaaraha ma jiro. Sidoo kalena waxaa warar hoosaada oo la helayo waxay tibaaxayaan oo ay sheegayaan in qaar ka tirsan wasiirada ay ka cagajiidayaan inay baneeyaan labada xil mid un, iyagoona la sheegay inta oo ay ugu wacan tahay inuu sii socdo dastuurkii hore, haddii kalese dastuurkan dib looga laabto islamarkaana meesha laga saaro qodobada dhigaya in xukuumadda iyo baarlamaanka la kala saaro. Wararka ugu dambeeya ee laga helayo xukuumadda ee Soomaaliya, gaar ahaan golihii wasiirada ee shalay wasiiradii halkaa ka qayb galay ayaa sheegaya in si toos ah ay uga cagajiidayaan, iyagoona sidoo kale ay ka keeneen doodo ay ka mid tahay in dib loo dhigo dastuurkan islamarkaana xilliga aysan ku habbooneen in lasoo bandhigo iyo arrimo kale. Tanina ayaa la sheegay in ay sababtay in wax warqad rasmi ah ay ka soo saari waayaan xukuumadda federaalk ee Soomaaliya. Xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa ilaa imika uusan ka hadleen arrinkaasi. Wixii kaloo faahfaahin ka soo kordha arrinkan halkan oo TTS Somali TV kala socon.